إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن شاء الله تعالى وحين عاوي بلا بدونا درسك كسابسا تفسير القرآن الكريم كا عاو هبين جمعة سوق ليه وحنو إن شاء الله تعالى درسك أنا كو أخرينا مقالة مينيابوليس وطنك قبل كلو يقام مينيسوتا waddanka Mareykanka caawa taariikhdu ama bishu waxa weeyaan marka la fiiriyo dhinaca hijriyada ama taariikhda islaamka Jamaadul Awwal bisha loo yaqaano ayaa maanta 28 ah sanadkuna waa 1430 taasoo ku beegan bisha Abriil 19keeda 2012 waxa ka qayb qaatay iskuna dabariday ama sponsoray tafsiirkan suurtana galiyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka bacdi TV-ga loo yaqaano Global Box TV TV-ga loo yaqaano ayaa sponsoray oo gacan ka qaatay. Haddaba tafsiirkani waxaan u akhrin doonaa insha Allah ta'ala si kooban oo qofku wacdi una ka qaadan karo tafsiirkiina uu ka ogaan karo. sidoo kale waxaan ka bilaabaynaa hoos korna u soconayna quraanka marka la tafsiirayo wuxuu ku fiican yahay la akhrinayo in kor iyo al-faatixada iyo al-baqara laga soo bilaabo laakiin maadaama dadka intooda badan ay suuradaha hoos ay bartaan si ay ugu tukadaan inay macnihiisa fahmaan waxa ay ku tukanayaan laga maarmaan ay tahay ayaan waxaan door bidnay inaanu ka bilowno xagga hoose suurada loo yaqaano suuratul naas ama qul a'uudu birabbin naas inaanu ka bilowno oo kor wadno insha Allah ta'ala. labada suuradood oo caawa u horeeya oo akhrin doono mucaawadateyn baa loo yaqaanaa waa suurada la yiraahdo qul a'uudu birabbil falaq iyo qul a'uudu birabbin naas. tafsiirku caawa labada kuma koobnaan doono insha Allah ta'ala inta aynu gaarno waqtigu gaaro ayaan wada doonaa laakiin labadan suuradood badanaaba waa la isku qabtaa waxaan la isku qabtaa nabiga kaleey salaatu wassalaam si gaar ah buu hadlay. nabiga kaleey salaatu wassalaam xadiis wuxuu ku leeyahay آيات لغو سو دجي عاوة إيغو wax lamida anu ma aan arag wax lamida ma jiraan nabi markuu akhriyo يقول أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس labadaas suuradood nabiga kaleey salaatu wassalaam wuxuu ku sheegay suuradaha iyaga wax lamidihi ma jiraan. suuradaha nabiga kaleey salaatu wassalaam sidoo badanaa bay ka dharagsan yihiin nabiga kaleey salaatu wassalaam waa la sixray waxaana sixray nin yahuudiya oo Labiid ibn Acsam la oran jiray yahuudi marka deganayd magaaladaas Madiina ahayd ninkaas ayaa maaratay sixray. waxa kale la yiraahdaa waa nin Bani Zurayq qabiilka loo yaqaano xalif la yahuuda ah ninkaas nin munaafiq ahana waa la yiraahdaa. si kastaba ha noqotee nabiga kaleey salaatu wassalaam waa la sixray. Aisha radiyallahu ta'ala anha si sheegayso laga warinayo nabiga kaleey salaatu wassalaam inuu tilmaamay sixirkii la sixray in laga furdaamiyay waxaan looga furdaamiyay waxa kamid ah nabiga kaleey salaatu wassalaam inuu isku akhriyay labadan suuradood oo qul a'uudu birabbil falaq iyo qul a'uudu birabbin naas. Aisha radiyallahu ta'ala anha waxay leedahay kana idha ishtaka wuxuu ahaa nabiga kaleey salaatu wassalaam markuu xanuunsado nabiga kaleey salaatu wassalaam markuu xanuunsado wuxuu ahaan jiray yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwadatayn nabiga kaleey salaatu wassalaam naftiisa wuxuu ku akhrin jiray mucaawadataynka suuradaha loo yaqaan oo labadan suuradood ah
qul acuudu birabbi falaq iyo qul acuudu birabbi nnaas labadaas buu nabiga calayhi salaatu wasalaam isku akhrin jiray wayanfuthu wuuna isku tufi jiray nabiga calayhi salaam oo yacni gacmihiisu nabigu intuu ku akhriyo saa ugu akhriyo labadaas suuradood qul acuudu birabbi falaq iyo qul acuudu birabbi nnaas ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam jirkiisa marin jiray waxay leedahay caaisha radi allahu tacala canha falama ishtadda wajacuhu nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu xanuunku ku darnaaday oo xanuunku aada iyo aada u noqday kuntu aqra'u calayhi bilmucawadaat waxay tiri aniga ayaa ku akhrin jiray labadan suuradood wa amsaxu biyadihi calayhi raja'a barakatiha waxaan samayn jiray bay tiri gacantiisa awal nabiga marka uu caafimaadka qabay hadduu xanuun yar dareemo labadiisa gacmood buu ku akhrin jiray isaga ayaa ismarin jiray marka waxay tiri caaisha radi allahu tacala canha oo xaasaskii nabiga ka mid ahayd markii nabiga calayhi salaatu wasalaam xanuun ku darnaaday oo yacni xanuun uu qabtay aanu dhaqaaqi karin iyada ayaa gacantiisa ku akhrin jirtay kabacdi gacantiisa ayay jirhkiisa marin jirtay caaisha radi allahu tacala canha marka suuradahan waxayna tusaayaan marka in qofku markuu xanuunsan yahay la isticmaalo oo intii aad gacmaha ku akhrido jirkaaga mariso sidoo kalena nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la jideeyey marka la seexanayo labadan suuradood iyo qul wallahaba saddexdaba intii yani gacmaha ku akhrido inaad jirkaaga marinaysid arrinka isaga wuxuu kuu noqonayaa wax ku ilaaliya ayuu kuu noqonaya caaisha radi allahu tacala canha waxay tilmaantay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu u sheego oo yidhi caaishaay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa caafimaad i siiyey oo xanuunkii hayay oo sixirka ahaa ilahay baa caafimaad iga siiyey siduu ii siiyey allah subxaanahu wa tacaalana waxay ahayd ataanii rajulaani laba nin baa ii yimi faqacada axaduhumaa cinda ra'sii walaakharu cinda rijlii laba nin baa ii yimi anoo hurdo mid ka mida madaxaygu fadhiistay midna lagu fadhiistay laba marag bay ahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu jiranaa oo sixirkii ay qolyaha yuhuudda ay sixreen laba marag baa u yimi si sixirka looga furo midna madaxu ka fadhiistay midna laguhu ka fadhiistay wuxuu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala aladii cinda ra'sii lilaakhar kii lugahayga fadhiyey baa kii kale wuxuu ku yidhi maa baalu rajul ninka xaalkiisu muxuu yahay ninka maxaa ku dhacay iyagii baa su-aalahaas weydiinaya laba nin baa ii yimi anoo hurda midna luguhu iga fadhiistay midna madaxu iga fadhiistay kii lugaha iga fadhiistaa wuxuu ku yidhi kii madaxa iga fadhiistay ninka maxaa ku dhacay kii kale marka wuxuu yidhi qaala matbuub waa sixran yahay waa la sixray markaasuu wuxuu yidhi yaa sixray kii kale wuxuu yidhi labiid ibni acsan baa sixray oo sideebuu u sixray muxuuse ku sixray fii mishtin wa mishaaqa yacni shanlo uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu lahaa ayuu ku sixray shanladaas timaha ama garfeerta waxa loo yaqaano timihii ayaa la qaaday oo sixir lagu sameeyey way is weydiiyeen xaggee baa la dhigay sixirkii isaga ahaa waxay tiri caaisha radi allahu tacala canha nabigii labadii nin baa iswaraysanaya buu yidhi oo wuxuu yidhi mid ka mid ihi xaggee baa sixirkii la dhigay ilaa sixirkii marka la sameeyo ama tiima ha noqde ama wax kala noqde meel baa la geliyaa inta sixirkaas meeshu yaallana qofku waa sixran yahay waana jiran yahay meeshii bay tilmaameen waxay yidhahdeen ceelka noocaas iyo noocaasa buu yaallaa ceelka noocaas iyo noocaasa ayuu yaallaa ceelkii baa la tegay waa laga soo saaray waxaa la yidhahda ceelka waxaa loo tegay biyihiis iyagoo xinno u ekaadeen guduud ay noqdeen ayaa loo tegay wuxuu sameeyey sixirkii buu sameeyey nabiga markuu sixray ceelka biyahaas hoostooda wuxuu ka qoday god halkaasaa la gashay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam suuraddan fadaa'ilkaas buu ku sheegay in maaragtay sida caaisha tilmaantay nabiga calayhi salaatu wasalaam isku akhrin jiray labadan suuradood suuratu nnaas suuradda u horeysa inu akhriyayna suuratu nnaas baa la yidhahdaa waa suurad maki ah maki waxaa la yidhahdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu magaalada maka joogay suuradii soo degay waan u tegi doonaa madani suurada madani ayaa jira oo macnaheedu tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada madina joogay suuradii soo degay marka suuraddaani waxay ka mid tahay suuradihii nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu magaalada maka jooga soo degtay aayaadkeeduna waa 6 aayadood bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabay arraxmaan ilaahay naxariista guud lahaa arraxiimi ilaahay naxariista gaar lahaa ayaan ku bilaabay marka arraxmaan iyo arraxiimi waa sifaat allah subxaanahu wa tacaala leeyahay magacyo allah subxaanahu wa tacaala leeyahay
الرحمن صفة يداهي الله سبحانه وتعالى كسفي سيها نحريستي سمير الباقي كارتو كي نحريستي واسع هاي مرك الرحمن إلهي با مقع عسقارو له مرك مقع ليرادو إريق الرحمن مقع ليرادو إلهي با قارو له قفل الله بحين كرو الرحمن إلا إن وحلو إضافة الله لقى ماهان وعبد الرحمن إيو ساسو قال لي هذا ماني إريق الرحمن قفل الله بحين كرو إلهي با قارو له أما الرحيم صفة الرحيم والصفة اللي هويان وأنا مقع اللي هي لكن قف والله بحين كرايو أو لوجو يري كرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إلهي مركو رما إلهي بوحو لي هاي النبي عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم ويان رؤوف الرحيم ويان قولوا واحد ترى هذا النبي محمد أعوذ وحن مغنقلي برب الناس دتك رب قودي أيان مغنقلي ملك الناس دتك بقر كودي أيان مغنقلي مالك الناس نوريدي إله الناس دتك إلهودي أيان مغنقلي انت الله سبحانه وتعالى وحقوش يكتي صدح صفو الله سبحانه وتعالى كسفي سيح صدح تلمامود وإلهي سبحانه وتعالى كسفي سيح مد أهرس وحوية ربوبية ده وحويان رب النمو إلهي سبحانه وتعالى إنه رب كويهي إلهي سبحانه وتعالى إنه كأساقه إلهي سبحانه وتعالى نمعد إنه كسيه إلهي سبحانه وتعالى روبك إنه كسيه تقول حتى وحويان ملك وبقرطوية ويان إلهي ما ملك اسكاليه تصرفك كون كان الله سبحانه وتعالى اسكاله إلهي باكو مامولاي مامولك الله سبحانه وتعالى اسكاله صفات سدحانا وحوي إلهي ويان إلهي سبحانه وتعالى إلهي هاي عبادة الله سبحانه وتعالى إساق إنه ليه هاي إساق إن لعابده صدح داس صفو إلهي اسكاله أيان مغان قلي نبي عليه الصلاة والسلام waxa lagu yiri adiga xataa shaydaankaas ma kula xiriiraa nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri aniga xataa waa ila xiriiraa illa anna allah aanani alayhi laakiin aniga ilaahi subhanahu wa ta'ala ba ay kaalmeeyay fa aslama wuu islaamay shaydaankaygi aniga xiriir fala ya'muruni illa bi khayr aniga khayr mooye wax kale ma amro saasu nabiga kaleey salaatu wasalaam marka shaydaanka waswaaska oo qofka waswaasinaya ma ilaahi subhanahu wa ta'ala kama galay qofkana waswaas shaydaanku waswaaska waa jira qofka waxba ku abuuraa oo waxa jirtay nabiga kaleey salaatu wasalaam habeenada kamida masaajidkiisa ku itikaafaya oo fadhiya ayaa xaas kamida xaaskiisa Safiya la oran jiray baa nabiga kaleey salaatu wasalaam soo booqatay nabiga kaleey salaatu wasalaam baa u timi cabaar buu la joogay hadhowda markay danihii ay sheekadii dhameysteen ayuu nabigu damcayno soo dhaweeyo laana nabigu wuxuu rabaa masaajidku itikaaf ku jira markuu soo baxay masaajidka soo baxay ayaa waxa ka hor yimi laba qof oo laba dhalinyaro ah oo dadka ansaarta la oran jiray oo magaalada Madiina deganaaha markay arkeen bay istaageen marka nabiga kaleey sallallahu alayhi wuxuu ku yiri ala rislikuma innaha safiyatu binti huyay ukashabu yiri qofta ila socota safiya weeyaan nabigu wuxuu ka baqay shaydaan inuu qalbigooda wax ku tuuraho si sheegi doono nabigu ay u qaataan nabigu habeennimada haween kale la socdo فقال مركز لبدي والوحي يرادين سبحان الله يا رسول الله إلهي بن حماك ناس رسولك إلهي يعني ما فلان بيقول بكوضع معنا إلى أضوه يعني وح حمارة إنا سمينس نبي مركو وحير إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا وحير الشيطان كأيا وحو صعونا يا قفك ميشا ديقو مريو تركيسا meesha dhiigu marayo ayaa shaydaanku socdaa waxaan ka baqay inuu qalbigiina wax kala ku tuuro Soomaarti marka shaydaanku qofka uu ku dhex jira shaydaanku wuxuu marayaa dhiigaagu meeshu marayo buu nabigu yiri marka shaydaanka noocaas ah Allah ka mangal waxa Allah ka mangalay min sharri alwaswasi sharka waswasiya al-khannaasi ee gabashada badan alladhi kaaso yuwaswisu waswasinaya fi sudurin naas dadka laabahooda oo min al-jinnati shaydaanka soo jinka xaqiisa kamid ahaaday shaydaanka jinka xaqiisa kamid ahaaday iyo wanaasi shaydaanka dadka xaqiisa ka ahaaday shayaadun al-jinn wal-ins ay ala ka magalay qul waxa tiraada a'uudu waxaan magan galay bi rabbin naasi allaha yaan dadka rabbigooda ayaa magan galay malikin naasi dadka allahi iska laha oo maamulay oo boqorka u ahaa oo xisaabinayay ayaan magan galay
إله الناس دتك إله ذي المنقلي من شر الوسواس شرك وسواسية كان وسواسية شركي سأيا الله كمنقلي الخناس قبشة بدن وقبنيا فإذا ذكر الله خنس بليه ابن عباس رحمه الله تعالى شيطانكو ابن آدم كبه كجرا وهذا يقول كل حجرا فإذا ذكر الله خنس مركو الله سبحانه وتعالى قفكو حسه شيطانكو قبنيا وقبشة بدنيا ساسا مركو لوغو بحشي يعني خناس كي قبشة بدنا الذي شيطان كاسو يوسوس وسواسنا في صدور الناس ضدك الله بهودا ومن الجنة جنك حقيسة كمدها شيطان جنك حقيسة كمدها يوالناس ضدك حقيسة كمدها سورة كل حتى واحد يدا سورة الفلق وسورة مركو راح كتل مامي نويان وانا سورة سانو الشاقني إن لسكو أخري يقفكم كو جري هاي أي لقمار مانتاي سان شاقنا مركو روح ويان نبي عليه الصلاة والسلام واسكو أخرين جري مركو سيحانا أيوه مركو قفكو حنوسيا نبي أيو اسكو أخرين جري سورة مركو ينو سورة مكية ويان وحلي النبي عليه الصلاة والسلام قال المكة جوجا سودكتي سورة الفلق بالي هذا آيات كذا وشان آيات ويان بسم الله إلهي مقعيسا كبلابي الرحمن إلهي نحرست تقول لها مقعيسا كبلابي الرحيم إلهي نحرست قار لها مقعيسا يا كبلابي قل وحد تراد نبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ وحن مغنقلي برب الفلق فلق ربي جيسي مغنقلي وبرق فلقنا وحويان وبرق ويان الصبح صبح ذي ويان وحي لما معناتها هاي إلهي سبحانه وتعالى لي فالق الإصباح صبح ذا كيف يدي الله سبحانه وتعالى ويان قل وحد تراد أعوذ وحن مغنقلي برب الفلق وبرق ربي اسكلها أيان مغنقلي من شر ما خلق وحو الله أبو ري شركيسا أي الله كمغنقلي وحكستو الله أبو ري شركودا أي الله كمغنقلي ومن شر شركي با الله كمغنقلي غاسق مقدق مركي تهي إذا وقتي وقب وقبل كدعوه مركا وقبل كدعوه وهبينك اللي قارو شركيسا أي الله كمغنقلي ومن شر غاسق مقدق شركيسا أي الله كمغنقلي إذا وقتي وقب قبل كدعوه ومن شر النفاثات هوينك السحر ولا ياشأ أو حفوفة شركودا ما الله كمان قالي في العقد كنت ما هالحوضة مركو حكوا فيان كنت ما أنا واحد الله يوضع قفكم مركو واحد سحريان أو سحر كلا سمين أيوه أي حرقة واحد لسكو حراء لسكو كنتا كبعد واحد لقو أخريا مثلا انتماها مركو قفك لسوق على السحر أيوه كلي ولا حجليا ولا لقو حراء واحد كنتنا يسكو الرسم وكانيسان كبعد حبيك طوفان تاسا مركا wax Allah subhanahu wa ta'ala dadka waxa sameynaya ayaa Allah kama galab leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam jibril ba u yimi markuu u yimi wuxuu ku yiri ishtakayta ya muhammad nabi marka uu jirana marka nabiga la sixray bay ahayd faqala na'am ha waan jiranahay buu yiri faqala jibril marka wuxuu yiri bismillah arqika min kulli da'in yudik ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك ابن كثير مركو وحوليه ولعل هذا كان من شكواه صلى الله عليه وسلم نبي مركو الشيغان يباهي مكة الله السحري والله سبحانه وتعالى وكبا بحنونك السحر كهي مركي أريدو استعمالي جبريل وحويان وحكو يري مقع الله سبحانه وتعالى بانكو قطو فيا من كل داء يؤذيك وحكستو عذر أمر دبا أو كل دبا بيسنك الله سبحانه وتعالى كاغا تفيا ومن شر كل حاسد وعين متكستو حاسد شركي سي إشيسا الله يشفيك متكستو حاسد إشيسا أما إلكستو كود عضا بان كود تفيا كاغا تفيا مقع الله سبحانه وتعالى كود دوينيا الله يشفيك الله سبحانه وتعالى دوينيا مركا قفكا دو حنوسي هاي إنه استعماله أذكار تصوار ورطي يلا بدأ الصورة هذا أن شيء وأهل الدنيا وياه ومن شر حق اسم الله كمان قال النفاثات هوينك وسحرة في العقد أم قطفة في العقد كنت به ومن شر حاسد شرك اسبان كمان قال الله سبحانه وتعالى إذا وقتك حسد وحسده شيطانك يعني قفك حاسد مركو حسده ينا إله بك ما قلب ليه
marka waa laba suuradood oo runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala magangelyadiisa kuu jiidayo in la barto oo la isku akhriyo ay maaragtay ay habboon tahay weeyaan. qul waxaad tidhahdaa nebi maxamed acuudu waxaan magan galay birabbi lfalaqi waa beriga rabbigiisa ayaan magan galay min shari maa khalaqa waxaan ka magan galay ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu abuuray sharkooda ayaan alla ka magan galay. wa min shari gaasiqin waxaan kaloo ka magan galay mugdiga sharkiisa idaa waqtigii waqaba gabalku dhaco. wa min shari nafaathaati kuwa wax tufa marka wax sixrayaan wey sharkooda ayaan alla ka magan galay fil cuqadi guntimaha dhexdooda waxyaalahay urusheen isku xireen markay ku tufaayaan ayaa alla ka magan galay. wa min shari xaasidin mid kastoo xaasida sharkiisa ayaa alla ka magan galay idaa waqtigii xasada uu xasdaya weeyaan. suuradana ugu xigtana waxa weeyaan suuradda loo yaqaano suuratu samad oo inagu u naqaano ama suuratu likhlaas oo inagu u naqaano qul huwa allahu axadun. suuraddan iyada ahi nabiga calayhi salaatu wasalaam fadaa'il badan buu ku sheegay. fadaa'isha uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku sheegay waa waxaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a ayuu koox sariya diray qola sahan ama duulaan abuu diray nin buu madax uga dhigay. markuu nin madax uga dhigay ninkaa isaga ahay markuu tujinayo ragcad walba markuu dhammaynayo wuxuu kusoo khatimayay qul huwa allahu axad suuraddan. markay soo noqdeen bay nabiga u sheegeen waxay ninkaas madaxda noo ahaa salaad walba una tujinayo markuu ragcadda tukado faatixadii akhriyo oo suurad kale akhriyo ma rukuuco ilaa qul huwa allahu akhriya. intii aanu maqnayn aan soo laabanaynay kulli inta saas nagu wada ninkaani. nabiga marka wuxuu subxana wa taala nabigu wuxuu yidhi markaas saluuhu liayi shayin yasnacu dalik bal weydiiya wuxuu saa u samaynayo. fasa'aluuhu way weydiiyeen waxay ku yidhahdeen maxaad saa u samaynaysaa maxaad saa u samaysay oo ragcad walba aad tukanaysid maxaad quluulaha ugu soo dartaa. faqaala ninka wuxuu yidhi liannahaa sifatu raxmaan wa ana uxibu an aqra'a biha maxaa yeelay buu yidhi waa ilaahay subxaanahu wa tacala raxmaanka ahaa tilmaamihiisi weeye allay ka hadlaysa suuraddaani aniguna waxaan jeclahay inaan akhriyo. faqaala الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi akhbiruuhu ana allaha tacaala yuxibuh u warrabo u sheega in ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel yahay. u fiirsada jacaylka uu jecel yahay suuraddaas awgeed uu akhrinayay baa ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisu wuxuu yidhi waxaad u sheegtaan inuu allah subxaanahu wa tacala jecel yahay. xadiis kalea ku soo arooray oo xadiiskaas oo kale ah laakiin qaabka iyo siiqada ka duwan. wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa nin diray ciidan buu la diray ninkaasi salaad buu tujinayay markastuu salaad tujiyana wuxuu kusoo darayay maxay qul wallo kusoo darayay. markaase waxay ku yidhaahdeen warniyu qul wallaha keliya akhri markaa faatixada akhrido ama suurad kale akhri iska daa suuradaha ragcad walba qul wallaha akhrinaysid ma ana bitaarikiha bi anuu ka tegi maayo bi waa akhrinaya bi in axbabtum haddaad jeceshihiin inaan saa ina ku tujiyo facaltu waan samaynaya haddii aad nacdeense waa ina ka tegayaa bi. ninkan marka waxuu arki jireen nin fadli badan oo khayr badan weeye inuu ka tago ma ay rabin waa dul qaateen ilaa ay nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimaadeen. markay nabiga u yimaadeen bay arrintu u sheegeen waxay ku yidhaahdeen ninkaani ragcad walba uuna tujinaayo qul walluhu ku daraa. nabiga calayhi axaadiista tilmaamaysa fadaa'isha ku soo aroortay qul walluhu way badan yihiin laakiin waxaan uga soo kaaftoomaynaa insha allahu tacaala hal xadiis oo nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ku yidhi ayacjuzu axadukum an yaqra'a qofkiin ma ka caajisaya inuu akhriyo 3 meeloodoo meel qur-aanka hal habeen keliya habeenkii markuu tukanayo qofkiin ma ka caajisayaa qur-aanka inuu akhriyo 3 meeloodoo meel ka mid ah. fashaqa dalika calayhim arrinkaa isagahay saxaabada ku adkaatay see loo akhrin karaa qur-aanka 3 meeloodoo meel see loo akhrin karaa waa adoo yidhi habeen walba 10 juz baan akhrinaya. wa qaaluu saxaabadu waxay yidhahdeen ayunaa yutiiqu dalika ya rasuul allah rasuulka ilaah yaa awooda habeen walba in la akhriyo 3 meeloodoo meel qur-aanka. faqaala nabigu wuxuu yidhi marka allahu lwaaxidu laxad allahu lwaaxidu samad thuluth lqur'aan. suuradda loo yaqaano qul walluhu waxay u dhigantaa 3 meeloodoo meel qur-aanka u dhigantaa. marka suuraddan iyada fadaa'isha noocaas leedahay suuratu likhlaas baa la yihahdaa
وانا سورة مكية ويان او سورة النبي عليه الصلاة والسلام مركو مقالة مكة جوغا سودكت ويان سورة دان يدها وحا ويكا كومانتها أفرايضات وحو لي الله سبحانه وتعالى قل واحد ترى النبي محمد هو الله سبحانه وتعالى الله ويه إلهي سبحانه وتعالى الله ويه أحد الله سبحانه وتعالى أحد ويكليس ويان الله سبحانه وتعالى وكليس ويان لا شريك له عد ما ملك يكون كاللو ذاكتا مجرد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إساق أود إسكاله إساق عبادة إسكاله إساق أيام متيستي كلي إلا عابده وسيدة إنه أمرنا ويان لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله عد متيستي إلا عابده عبادة الله السيام مجرته وما إيمان كرته إلا الله سبحانه وتعالى مويه لا نذير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل إلهي سبحانه وتعالى وكلي سويا وح أدق من مجران وح لمذا مجران وح الله سبحانه وتعالى أوج مجران الله سبحانه وتعالى الصمد ويان الصمد وحل هذا أحد كأي الضومضة لما تدبهين أو يسوي كد يقطعوا عد كلا أنا بهرين يستقلوا بهيه وحكى لهم معني السيد ومضى كيس كلها أي لهم معني الله سبحانه وتعالى الصمد الله أيدتك وبهرين ويان وحكى استنول الله وبهرين ويان سقلوا بهيه الله سبحانه وتعالى وحكى لهم معني الصمد وحكى لهم معني الحي القيوم الذي لا زوال له سيد حسن البصري ليه الصمد وحل هذا الله النور أتاجن ما ملك كون كان لا زوال له أن ولي زول الله سبحانه وتعالى ما ملك كون كان الله أتاجن ويان الله سبحانه وتعالى الصمد متك الدومدي سوبها هيهم ويان لم يلد الله وحمد علين ولم يولد إلهي سبحانه وتعالى إسجن الله مدلين الله وحمد علين إسجن الله مدلين ولم يكن له الله وبسقنا ملهان كفوا وأدق ما أحدنا أحد أدق ما والله مذنا الله سبحانه وتعالى مجده مرك الله عرور مله إسجن الله مدلين وحلا معنا تهاي الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول لي هي بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء الله سبحانه وتعالى يقول لي هي إلهي كي أبو ري بلابي ويان صمدان يدل كان أبو ري سيديبا الله سبحانه وتعالى عرور لي هي ولم تكن له صاحبة هويني الله سبحانه وتعالى ما سمع سنة وخلق كل شيء الله وحول بسقى أبو ري سبحانه وتعالى آياتك الله وحول لي هي وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إلهي وما هبونا إنه سمع استعرور إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن يعني عبدا مجران وحبل كي عرك جوجا مجران إلا الله سبحانه وتعالى بو إيمانه يقود أضوما بو إيمانه الله سبحانه وتعالى قل واحد هذا الله سبحانه وتعالى أحد ويكرجس الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الصمد أضومدي سكوا بهنايا الله سبحانه وتعالى سجلوا بهنيه لم يلد الله وحمدلين ولم يولد إلهي سجن الله مدلين ولم يكن له الله مسجنا أحد قفء كفوا الله أرجما مجره الله سبحانه وتعالى وحليه هي حديث قدسي والنبي عليه الصلاة والسلام كور وحليه قال الله عز وجل الله وحيري كذبني ابن آدم كوي بينيين ولم يكن له ذلك ابن آدم كوي بينيين إن إبينيان ما أهين وشتمني ولم يكن له ذلك وانا يعاين ابن آدم كوي يعاين إن يعايان ما أهين فأما تكذيبه إياي بينت إبيني وحويان فقوله لن يعيدني إرجو ابن آدم كجري ليسوع المايو وأغنى قريشتا كفار قريشي وتورجنا إذا متنا وكنا ترابا ومركا عيد نقنه ولا فنقنه بان الله صبحنا يا مركا الله وحليه بينت إبينيان وحويه إراهض أورنيان لن يعيدني الله يسوع المايو كما بدأنا سوء أبوري وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وحليه الله سبحانه وتعالى أبوري السهران أبوري معها يعني سوعلين تلا سوعل لا معها مد يعني كليلة السهر بلو جهرة يعني مركو رسان أبوري أي أسوعل لا ويان وأما شتمه
وأما شتمه عينته يعين يميا إياي أنيقا فقوله اتخذ الله ولدا وحيوش يغين عرور ليهي إريقو يروي الله سبحانه وتعرب ليهي وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحدا marka saas ma taqaanaa suurada qul wallaahna macnaheedu yahay suuratul masad suuradan bay ku darana insha Allah ta'ala suuratul masad waa suurad waxa weeyaan iyaduna maki ah oo suuradihii nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu magaalada Maka jooga soo degtay weeyaan suuradan iyadaahi waxay ka kooban tahay 5 aayadood suuradan iyadaahi sabab nusul baleedahay inna waxa uu naqana tabadyada suuratul masad baa leedahay suuradaani waxay leedahay sabab nusul waxa la yiraahdaa sababta ay ku timi aayadaani ama suuradaani xaadisa dhacday ama arrin baa dhacday aayad baa timi arinta ka hadlaysa ama suurad baa timi waxa la marka sabab nusul hadi al-aaya aayadaani sabab nusulkeedi ama suurada sabab nusulkeedi say ku soo degtay ahadiisna waa leeyahay sabab al-wurud baa leeyahay xadiiskan ku soo arooray xadiisku markuu iimaanay arrin baa dhacday nabiga arrinta ka hadlay سبب ورود بليا سبب ورود الحديث سببته حديث كان كوي مويان marka suuradaani sababaha ay sheegaan ay ku yimaadeen Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala uu leeyahay kale xadiis uu warinayo ee Abdullah ibn Abbas baa wuxuu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam baa banaanka u baxay magaalada Maka ayuu banaanka uga baxay fasa'ida al-jabala nabigu wuxuu fulay buur buu fulay fanada nabigu waa dhawaaqay marka ya sabaha ereyla isticmaal jiray marka cadow arkaan oo kale oo dadka la soo saaray waa tolla ayay oo kale weeyaan fajtama'at ilayhi quraish baa nabiga isugu soo yaacday oo isugu timi nabiga markuu intuu buur fuulay qayliyay oo soo baxay nabiga yiri magaaladii wixii deganaa waa soo baxeen nabiga kaleey salaatu wasalaam Muhammad amiin baa la oran jiray wayna ka damay jireen wayna aamini jireen markii arkeen nabiga kaleey salaatu wasalaam qaylinayeen magaalada baa laga soo baxay ومع ذلك مركي عدو الله أركوه كلا صوص عدا يسال السمجري فاجتمعت إليه قريش با صور ورطيو النبي سوتمي فقال مركي قريش تميش تمي نبي عليه الصلاة والسلام وحيري أرأيتم إن حدثتكم أن العدو كور ما هدي أن يكشك أيوه إن عدو إلو كوا بريسنا أيوه أما قلبت إديسو قل أيوه مرهمين الله هيدا كور ما دا إذن كله عدو با سوق قل أيوه مقالة oo saaka soo galay ama galabta soo galaya ma iga rumaysan lahaydeen qaalu na'am ha biirahdan qaala kanabi wuxuu yiri marka fa inni nadhirun lakum bayna yaday adab shadid anugu waxaan idin ka digayaa adab daran ba idin ka digayaa in ku timaada inta ma ku dhaw yiri fa qaala abu lahab oo nabiga adaradiisa kamid aha ayaa wuxuu yiri ali hada jama'tana war masaasa suuka yeertay sidaas miya isuuso kaaya ururisa maantay tabbalaka hawg iyo halaa ugu dhaco muhammad oo ma intaas isugu soo kaaya yeertay cadaabta ka baqa miya suuka ay soo yeertay oo noo soo ururisay balaaya ugu dhaco halaka ugu dhaco fa anzala Allah ta'ala Allah wuxuu soo dejiyay marka tabad yada abi lahab wa tabba marka suuradan saana ku timi أبا لهب مرك أم أبو لهب وحل لوجو بحشي أبو لهب وحويان لإشراق وجهه وجهه فجري نقرح بضبها لهب وحل أقولك إفكال هذا أم أقولك هذا ما قرح دي الصباح لوجو بحشي أبو لهب نبي عليه الصلاة والسلام نبي جري هذه قرب نبي جري أو وحوي ذاتك نبت بدأ أوجستيبو كم ده مرك صورة عن السام بكتمي بسم الله إلهي مقعيسا قبلها الرحمن إلهي نحريستا قول لها الرحيم إلهي نحريستا قار لها تبت وحاها لك سمي يدا أبي لهب كعنتيس وتب ويها لك سنت وحكو ليري تبت كهوري إنه نقطة هبارو كلا وتب الضمنة إنه خبر نقطه ومعنى مركب نقول تبت يدا أبي لهب تبت ها هوكتو ها لك سنتو يدا أبي لهب قعنتي سها هوكتو ها هلاك سنتو وتب وابه هوكتي ووه هلاك سنتي انت مركا ايضا سودكتي وانت لغو يا ابو لهب يعني عذاب لو شيغين غبنايو اوللايو
أيو وحو كوجري باليري إن كان ما يقول ابن أخي ويلك أدرك وحو الشيء حقنا حقتهاي محمد وحو الشيء هدي حقتهاي فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب الأليم بمالي وولدي أنا ما نت قيامة والشيء نبي محمد هدي نبتهاي نفتي إذا واحد كفرنا يوم عروت هذه مالكي نحو الله بانه مالي عروب بانيستا عذاب قلي ميسانك يجي أسوفرنا أنت مركي تري بالله وحي مركب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى وحمطر عنه أو له بحقيسة ماله مال كيسو يوما وحي كسب أو كسبضي وحو كسبضي يمال كيسو تهون وحبطر مايا سيصلى وقلي دونا نار بو قلي دونا أبو لهب ذات اللهب أرل صاحبه والفرصة مقع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سؤالها إن شاء الله تعالى لبا سؤالات ودرسي كبعدي يلا سوقد بي إن شاء الله سؤال شكواد وحي لهذا هاي أنا جو سفر كجرة هدي أن وقت الصلاة سوق لي أنا قراني ماشي قبلته يجرتي محان سمانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد استاذ إلهي سبحانه وتعالى وحنا نوجدي ونوقر شيء إنه أتوكنه قبلة قفك إنه قبلة حقيقة قابله وحنا كم تهاي صلاتها وحيالها أركان كذا كم تهاي استاذ بصلاته وحلا تهاي وحلو يقانه شروط إيوه أركان شروط وحلي هذا وحي كبحسن صلاة أن كجري سيد طهارة دي أو كله قف طهارة قاته يضن وحي كم تهاي شروطها صلاة إن قف وجهسته ماشي هذا قبلة وجهسته أركاننا وحلي هذا صلاة جودها وحى كجرة سيد تكبيرة إحرامك أو كله فاتحة دي أو كله ركوع دي أو كله يوحلا مده marka waxa laga marmaana inaad salaada marka tukanaysid aad qiblada qaabisho hadii aad qiblada garan weydo waxa laga rabaa inaad dadaasho oo meeshii aad ku filayso in qiblada aad u tukatay in qiblada ka xigto inaad u tukato baa laga marmaana salaada ka tagmaysid oran maysid qibladii baan garan waayay laakiin waa tukanaysaa meeshii aad marka u malanaysid daniga u badan yahay inay xigto ayaa tukanaysaa hadii marka muddo ka bacdi aad ogaatay inaad meel kale u tukatay صلاة حسو علميس لأن نبي عليه الصلاة والسلام صحابتي أو هبين كمية سفرها أيها وحى هودي كقرية أم عرك كقرية ضرورة كقرية صحابي حديث ورنا وحولي هاي وحنسكو خلافني ماشي قبل نجحتي وحنا يرين منين كستو أنا نجمدها وح أتوكني على حدي قارب أتوكني قفل من ماشي أتوكذو على مدي مرك واجو بريء أيها قفل بوح وقاضي ماشي حال لو أتوكنا يناي ميل صحاهين أي قبل دهين كبعد النبي الله الشيء نبي عليه الصلاة والسلام ما أنا أوران صلاة السعودية وكان صح مركو حال دونا هنا كل ده شو ماشي قبله كحكته كبعدنا أو تكته هذه أتقرن وين صومها ماشي أضم الله سبحانه وتكنسا وبلا توفيق صلاة كلا واحد هذا قف مركو سفر كي هاي جارجة دوشي سملوت وانكرا قف مركو سفر كي هاي جارجة دوشي سملوت وانكرا نبي عليه الصلاة والسلام صلاته واحد جرتو كنت كان جري قاعد كدوشيسا إيه الصلاة أنا كنت كان جرين الصلاة قاعد كدوشيسا مثلا صلاة السنة ده أوكله نبي عليه الصلاة والسلام كنت سفر كجره قاعد كأسارين هاي أيو كنت كان جري هذه الصلاة ده تكون إذا مرك السنة هاي قاعد كأسارنتها ملك استأكل جستو وها كنت كان إذا قاعد كدوشيسا لكن هذه الصلاة فرض هاي نبي عليه الصلاة والسلام كمت كان جرين صلاة فرضها gaariga dushiisa uu degi jiray yani gaadiidka dushiisa uu degi jiray marka waxa laga doonayaa inaad degto oo aad ku tukato dhulka hadii laakiin gaadiidka asaaran tahay uu yahay midaan degi karin adigu midaan maamusho maaha sida arigan joogno kale diyaarada la isticmaalaa train baa la isticmaalaa basas baa la isticmaalaa adigu aan xukumi karin oo aan joojin karin salaada waqtigeedina uu soo gaaray maxaa sameynaysaa waa ku tukanaysaa gaadiidka asaaran tahay dusheeda ku tukanaysaa wayna ka gudaysaa وقاعدتك هذا كذي كراد وياه أما استاجي صلاة دوشة كنت كنيسة لكن هدي على وضع له هاي إن هذا قاعدتك وضعه الله قوم بنانا صلاة فرض كأنا كنت كتو قاعد تشيس لكن صرناها وكنت كنيسة ملك السكولة جستنا بملأ والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم جزاكم الله خير وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.